wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamuud Colo Barrow oo wareysi siiyay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay qorshayaasha ay wasaaradda u dejisay ee la xiriira kalluumaysiga iyo kheyraadka badda. Sidoo kale waxa uu wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka Maxamuud Colo Barrow uu sheegay in ay dhisi doonaan adeegyadii kalluumaysiga oo idil si loo helo kalluumaysi badqaba. Vision-keena waxa waa inaan dib u soo celinno facility ay u baahnaayeen kalluumaysatada. waxaa kaloo vision-keena uu yahay inaan dib u soo celinno warshadihii doonyaha caaga iyo kuwii looxa si ay u helaan kalluumaysatada gaadiidka ku habboon ay badda ugu soo kalluumaysan karaan. in qalabka lagu kalluumaystana loo sahlo haddii ay suurtagal tahayna warshadihii lagu samaynayo gudaha waddanka laga sameeyo. in dib loo soo celiyo warshadihii gasacaynaya kalluunka sidii qandala laasqoray xaabo iyo kuwa kale loo sameeyo. waxaan la soconnaa Kismaayo waxaan ku leenahay qaboojiye, Baraaw waxaan ku leenahay qaboojiye, Muqdisho sidoo kale haddana wixii dhan waa ay baaba'een. marka wasaaradda tani qorshaheedu waxa waa inay dib u soo celiso facility kalluumaysiga oo dhan. dhanka kale waxa uu sheegay wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda inay dib u soo celin doonaan hantida wasaaradda ay lahayd ee ku dhuntay dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. waxaa kaloo jirta hanti qaran oo wasaaraddu leedahay ha noqoto guryo, dhul bannaan. waxaa kaloo jira iskuul lagu barto cilmiga badda in asagana dib loo soo celiyo. waxaa kaloo jiro maraakiib 4 markab 5 markab hal qaboojiye ay 4 kalluumaysataa oo ku xiran xeebtaan Cadan. waxaan rabnaa inaan suurto gelinno mar labaad in 2 ka mid ah dib loo soo celiyo badda ka shaqeeyaan dakhli badan ay soo geliyaan dawladda. gabagabadii ayaa waxa uu sheegay mudane Maxamuud Colo Barrow wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya in ay shaqaabuur u sameyn doonaan kooxaha burcadbadeedda ah si ay meesha uga baxdo dhibaatooyinka ay ka cabanayaan kalluumaysatada Soomaaliyeed. xalka ugu horeeyo oo aanu qabanayno waxa waa in horta ka dawlad ahaan aanu sifeyno burcadbadeedkaas aan u sameyno dhaqan celin dooyasiino aan ku wajahno inay kalluumaysato noqdaan oo aynan jirin wax burcadbadeed ah oo Soomaaliya ka jira. taas marka la helo mandate-ka ay leeyihiin qolooyinkan maraakiibta badda waardeeye waxaan dhihi karnaa waa mahadsantihiin waa inoo dhamaatay baddeena annaga ku filan. wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa looga fadhiyaa inuu soo celiyo kaabayaashii dhaqaale ee xagga kalluumaysiga iyadoona kalluumaysatada Soomaaliyeed ay uga fadhiyaan inay wasaaraddu ay daboosho cabashooyinka ka imaanaya xaggooda. Farxiye Mir Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.